kadib markii shir u dhawaan ka hadlay ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kaga sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Koonfur Afrika ay sameyn doonaan xiriir xagga diblomaasiga ayaa waxa arintaasi soo dhaweeyay jaalida Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika. shir dhawaan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha ka sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Koonfur Afrika ay soo ceshan doonaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed. arintaasi ayaa waxa Soomaalida ku nool Koonfur Afrika qaarkood ku macneeyeen in loo baahan yahay xiriirkaasi iyadoo Koonfur Afrika ay ku nool yihiin in ka badan 60,000 oo Soomaali ah qaarkood ganacsiyo ku leh. haddaba telefishinka qaranka oo mikrofonka la dhaxmaray qaar ka mid ah jaalida Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin arintani ka soo yartay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. ugu faraxsanahay in South Africa safiir loogu magacaabo sababtoo ay tahay safiir la'aan waxay leedahay dhibaato. sababtoo ay tahay aniga qurbaha waxaan soo galay 81 ilaa iyo hadda. afar wadan oo Carab ah, afar wadan oo Yurub ah oo Talyaani inta badan aan joogay ayaan soo joogay oo safiir lahaayeen ilaa iyo 91 ilaa Uganda. safiir aad ayuu u fiican yahay markuu safiir leeyahay wadanka qofka wax laga hadlayo waxa waaye dawladdiisa safiirka wuxuu tagayaa macnaha dawladdiisa uu tagaa macnaha uu doodi karaa. aniga ah Cabdi Xuseen Ganay waxaan aad ugu faraxsanahay warkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Mr. Gaas ee ku saabsanaa inuu aad wadankeena oo ka furanayo safiir wadanka South Africa u fariisto wadankeena. waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay maadaama hadiiba la helo in safiir oo wadankeena fariisto oo South African anagana waxaan rajaynaynaa in safiir Soomaaliyeed oo noo soo fariisan doono meeshaan aan ku noolnahay wadanka South Africa qaasatan magaaladiisa Cape Town. arrinta ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha yaga Dr. Cabdiweli Maxamuud in uu la sameeyo xiriir diblomaasiyadnimo wadanka South Africa noogana sameeyo safaarad aan aad ugu baahannahay annaga maadaama oo wadankanagii aan in badan ka soo maqanahay. dowladda kacaanka ee Soomaaliya ayaa waxa ay burburtay xilli ay Koonfur Afrika ku jirtay gumaysi. waqtigaasi wixii ka dambeeyay ma jirin dowlad ka dhalatay Soomaaliya oo isku mashquulisay in xiriir diblomaasiyadeed la sameeyo dowladda Koonfur Afrika iyadoo tallaabadani ay noqon doonto mid yareysa dhibaatooyinka ay la kulmaan Soomaalida ganacsiyada ku leh dalka Koonfur Afrika oo qaarkood la dhibaateeyo. Cabdulqaadir Axad, telefishinka qaranka, Cape Town, Koonfur Afrika.